asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal ilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga wareysiga qaybtan waxaan ku wareysan doonaa qonsulka ahna sihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalkan Koonfur Afrika mudane Maxamed Cali Mire Nabadoon oo maalmahan howlo shaqo u jooga magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika mudane bal waxaad ka warantaa horta marka hore kusoo dhawo barnaamijka bandhiga wareysiga ee ka baxa telefishinka qaranka Soomaaliya marka labaad bal waxaad inooga warantaa socdaalkaaga magaalada Cape Town iyo howlaha u timid waa maasanta qorshe waxaan u imid markii hore waxaan u imid ka qaybgalka qorshe oo ahaa 2 bilood soo socday oo ah ka qaybgalka State of Union-ka madaxweyne Jacob Zuma uu rabay labada baarlamaan fadhiga labada baarlamaan ee kabineetka oo ku aadanaa 12 bisha laakiin 11 waxaa dhacday dhaxdan naxdin lahayd oo in dad Soomaali dhalinyarada Soomaaliya uu dilay 3 qof oo kale Soomaali 3na dhaawacay marka halkan markii aan imid waxaan go'aan ku gaaray inaan ka qayb qaato tacsidii iyo aaskii meeshii aan ka aadi lahaa State of Union-ka sababtoo anaga waxaa muhiim noo ahaa ka qaybgalka arintaas marka shaqadaas horaan u imid ujeedku ah laakiin markii dambe halkaas ka dhacday ayadana waa ka tacsiyeynaa ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay ban wuxuu runtii dhacdadaasi dad badan taxsuuy ka direen waxa rabaa markan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalka Koonfur Afrika ka dhacay ee safaaraddu maaragtay diiwaan gelisay maxaad nooga xusi kartaa dhacdooyinka hadda waayahan u badan u dambeeyay soo laabanaya waxaa ka mid ah isdilka Soomaalida waxay ka dhacday Joburg Gauteng xaafadda Mayfair waxay ka dhacday Limpopo hadda waxay ka dhacday Cape Town Church First Palace la dhacmaan dhaxdaas hadda midaan u dambeysay waa midaan listilay waxa hadda soo socday waxyaalaha naxdinta leh Soomaali islaynaysa oo waliba waagi hore waa kala fogaan jireen laakiin hadda aad degdeg waa 3 bilood gudahood ilaa 7 accident baan haynaa waa qodob waxyaalaha kale oo dhacay oo culays kale oo safaaraddu ay ogaatay waxaa ka mid ah Soomaalida hadda wadanka ay u gashay meediyadii iyo siyaasiyiintii inay yihiin dad sharciga buriya hub sharci darraa qaata hubkiina uu isticmaalaya inay wax ku laayaan tusaale ahaan Soweto wixii ka dhacay qof Soomaali ah bilaabay baa qof u dilay Attersfield qof baa lagu dilay South African Soomaali baa dilay baa la yiri tuulo kale qootayna qof baa lagu dilay Soomaali baa dilay baa la yiri mid walba waxa soo baxday hubka la isticmaalay inuu sharci darro yahay waa arinta labaad oo ayadana culays kale oo dhacdooyinka ay safaaraddu hadda qortay arinta saddexaad waxay tahay oo ayadana naxdinta leh caruurta u dhalatay wadankeena ku jira gacanta aan Soomaali waalidkooda ahayn ee ummadaha kala haystaan oo ayagana soo badanaya caruurtaas u qaybsanta qaar ay iska dhaleen laba waalid oo Soomaaliya iyo qaar ay iska dhaleen waalid Soomaali iyo waalid Koonfur Afrikaan marka culeysyadu sanadkan waxaad moodaa inay ka badan yihiin sanadkii hore waa tahay markan dhacdooyinka isdilka oo kale oo Soomaalidu geysato waxaa jira in loo isticmaalay hub sharci darro ah oo dalkan ay ku isticmaaleen Soomaalida waxay sababeen in maaragtaa qaarkood South African lagu dilo oo kadibna dadka South Africaanka ciqaab ay sameeyeen darteed loo boobo dukaamo badan oo Soomaaliya sida ka dhacday Soweto Pretoria West sanadkii la soo dhaafay sidoo kale bilowgiisii dhacdooyin kale saas oo kale oo dad badan oo Soomaaliya ay ka dhaceen magaalada BE Johannesburg Cape Town oo ay Soomaali geysatay dil ah marka loo eego dhacdooyinkaas dilka ay Soomaalidu geysanayso ma la dhihi karaa waxay sameyn karaan waji kale oo ay Soomaalida lagu bartilmaameedsado in ayagu maaragtaa isdilaan ayagu maaragtaa ay sameeyaan falal ka baxsan sharciga dalkan ma waa sax waa saad u sheegtay way hadda arintaas already waa bilaabantay hadda waxa meediyadu ay ka hadlayaan in dadkii Soomaalida laga dhigo dad dambiilayaal ah in loo qoro inay yihiin dad fawda dad hub sharci darraana haysta dad hub sharci violence iyo qofkii la hadlaba tooganaya hadda waxa taas lagu sii daray in dad ayagu arxan aan lahayn oo ayagu isku naxariisanayno isdilaaya dad wixii wadankooda ay ku soo burburiyeen halkan la yimid yani culays badan bay leedahay anna waxaan ku doodaynay waxaan sheegaynay sheeko taas ka akhrisan ka gedisan oo ah inay yihiin inaanu nahay dad nadiif ah waana nahay xaqiiqiyan inaan nahay dad shaqaysta inaan nahay dad canshuur dhiiba inaan nahay dad lagu faani karo
oo ayagoo qaxootiya oo aan skills iyo waxba lahayn inta yimid wax abuuraya hal abuur leh laakiin taas markii safaaraddu iyo dowladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta Soomaaliya iyo dadka Soomaalida wax garadka ay taas sheegaan waxaa hor ordaya mid practice kala oo ah Soomaaliya la xiray oo hub sharci darro lagu qabtay Soomaali kala dilay Soomaali waxa sameynaya marka waxaad moodaa ficladan inta saddex ka hor inay sheekadayadu ahayd mid adag laakiin hadda waa adkaatay waa tahay markan dadkii dilka geystay Soweto ee boobku ka bilowday kii Pretoria ka dhacay iyo kii Soweto ka dhacay dabcan dowladda xirtay maxkamadana ku socotay hayga xaaladooda halkee maraysaa dadkii qaarna maxkamadoodii maadaama ay badnaayeen gobolkuna waa taqaanaa yani maadaama ay badnaayeen schedule baa loo sameeyay haba qaar baa la soo saaraa tilaabadii koowaad la soo saaray waxay ahayd shaqsigii Soomaaliga ahaa iyo gruubka kale ajnabiga Etoobiyaanka Soomaalida hubka lagu qabtay baa maxkamadoodii la hormariyay waxaa tartiib isaga soo daba dhacay qolyihii kale oo qaarna la hayo wixii underage ka ahaa kala da'da yar ahaana waaridkood damiin lagu sii daayay marka kiisaskii waa socdaan Asrafil sidoo kale 4 Soomaaliya loo qabtay qof la xiray 3 baa isla markii la soo daayay kii kale maandhow asagoo bound laga dhigay ay ugu dambeysay lacag diboosi ah halkan yarkii wax ku dilay isniinta la keeni doona hadduu ilaado maxkamadda waa la hayaa marka mar walba waxay ku xiran tahay maxkamadda schedule-keeda sidii waqti loogu waxayna laakiin hawsha waa tahay marka dadkii ayagu soo barakacay ee la boobay oo kale qaarkood Johannesburg Mayfair ayay joogeen waxay ugu maqaalayd maalin dhaweyd in qaarkood ay laabteen haddana dadkii ganacsiga ee South Africaanka deegaankaasi in shir ay qabsadeen kadibna maaragtaa la dhahay xire ay ganacsiga ma ogolinay ka baxa ayagu ka waran halkee arrintaas maraysa ayadana waxaan sugaynaa waxaan la kulannay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Koonfur Afrika waxay noo sheegeen inaan ku wacyigelino dadka Soomaalida inaysan ku laaban dukaamadii ay ka soo qaxeen inta laga gaarayo xal waara waa amar dawladeed ma ahan wax by choice ah haddii aan ku laabanana wixii riski qofka Soomaaliga asaga askale sababtoo waxay dhaheen culays weyn baa jira waa in dadkii la dajiyaa la dhahaa maxaad rabtaan dawladda iyo dadweynaha reer Koonfur Afrika ay wada doodaan kadib la galaa mucaado ay dadka Soomaalida ku soo laaban karaan arrintan anagu 2 mar oo horaan TV-ga ka hadalnay dadkana u sheegnay inaan la laaban waxa dhacday in la laabto markii la laabtayna culayskaas ay yimid mar kale waa ku xijinaynaa inay dadku sugaan oo soo qofka asagoo shilmaan raadinay naftiisa riski gelin ilaahay baa irsaaqada bixiya meeshan adoon waxba haysan baad naftaada ha halaagi sug ilaa inta uu ka dhacayo kulan afar geesooda oo u dhaxeeya safaaradda mas'uuliyiinta Koonfur Afrika kore mas'uuliyiinta Koonfur Afrika localka iyo dadweynaha kaasoo ka soo bixi doonto mucaado lagu wada shaqeeyo oo dadka u saamaxay waa tahay marka xiriirka labada dal Soomaaliya iyo South Africa dowladda Soomaaliya iyo dowladda South Africa kala halkuu maray asaga waxaan rabaa bacdeeyo inta anigu aan ogahay dowladda Koonfur Afrika waxay har iyo hameen diyaar u tahay inay dowladda Soomaaliya la shaqeyso anagana la shaqeysaa sanbati badan bay noo haysaa wanaag badan bay noo haysaa wax badan bay noo qaban kartaa waxa la rabaa oo kali ah anaga ka dowlad ahaan iyo ka dad ahaan inaan la nimaano caqliga aan uga faa'iideysan lahayn laakiin dowladda Koonfur Afrika iyo dowladda Soomaaliya xiriirkooda aad buu u fiican yahay waxaan ka mid nahay wadamo yar oo South Africa si gooniya ixtiraam gooniya u hayso ixtiraamkaas tilaabada koowaad lagu arki karo waxaa ka mid ah 50,000 oo halkan joogta oo sharci la siiyay oo shaqaysanaya oo ixtiraam loo hayo oo sharaf loo hayo dowladdeedana waxaan ku gubaabin lahaa inay xoog saarto sidii loo dardargarin lahaa ka faa'iideysiga fursadaha nololeed shaqo siyaasadeed dhaqaale ee Koonfur Afrika yaala waa tahay markan sanadkii la soo dhaafay dhamaadkiisii safaaraddu waxay bilowday inay bixiso baasaboorada Soomaaliga dadku inay qaataan dad badan baa isweydiinaya qofka hadduu baasaboor ku qaato kale halkan qaxooti ayuu ku yahay muxuu saameyn uu ku yeelanaa arrimihii qaxootiga sharciyada qaxootiga haysteen sidaas uu isticmaali karaa mu u helayaan deganaanshiyo maaragtaa South African ah oo ay maaragtaa baasaboorku isticmaalaan oo kale oo ay ku baxaan kuna soo laabtaan arrimahaas dad badan baa isweydiinaya safaaraddu maxay ka leedahay la baroonta baasaboorka qasam ma ina qaadatid laakiin waa waajib waa xaquuq aan leedahay hadaa u baahato baasaboorka waxa soo doonanaya qofkii u baahda waa inuu heli karaa laakiin waajib kuma aha qofka Soomaaliyeed inuu qaato labo baasaboorka waxa loo qaataa in lagu safro qofkii safraya inuusan baasaboor la'aan u xanimin saddex baasaboorka waxa aad u isticmaalayso waxay ku xiran tahay sharciga waddanka aad ku haysato
haddaad work permit leedahay oo passport lagugu xiro, haddaad study permit haysato oo lagugu xiro, haddaad resident permit haysato oo passport u baahdo. Passportku dad badan baa u baahan laakiin qof walba uma baahna. Qofkii marka sharciga waddanka haysta ee passport un la imo waxa lagu saaran loo kaasoo anfacaya. Qofkii fiisa hela oo inuu dhoofar raba kaasoo anfacaya. laakiin qofkii qaxootiga oo warqadda maxaa la yiraahdaa section 21 iyo 23 haysta asaga waa mas'alo kale. waxna kama qaban karna anagu oo sharciga waddanka Koonfur Afrika u taala. laakiin qofkii u baahda hal qof Allah ka dhigay waa inuu heli karaa. bilowgii sanadkan waxaa jiray kambaniyo South Africana oo iyo shir ay wada qabteen safaaradda oo ku saleysnaa qaabka maalgashi uu sameyn karaan kambaniyada Soomaalida ah. aynada kambaniyada South Africanka maalgashi ugu sameysan karaan dalkii ama ganacsigooda u geysan karaan. arrinta halkee maray? bilow fiican bay ahayd. muhiimadda ka dambaysa waxay ahayd in South Africa la tuso in Soomaaliya business opportunity ama fursad dhaqaale ganacsi ay ka jirto. taas marka waxay ahayd bilow, laakiin waxaa la sheegay hal iyo labo soo fiiriyo waddankii inay jiraan. dhaqaaqaas marka waa bilownay. waxaan rabnaa anagu inaan dadka u tusno waddankii inuu yahay waddan nabdoon, la maalgashan karo, ganacsi lagu samayn karo. يعني مهمة أول تاسع هاي لكن ما تشران يعني سان هداي طبعا شيء صدق السؤالات بقفل بكويدينا يا وسكورتيجا إنشورنسيجا يدنك برايسكا وصو أفريقيا برودكتيجا قاعد قال وأمريكا لوبر برودكتيجا برودكتيجا كإيمانا يا شنغهاي أبو دبي وقاعد رخيص سوا لكن ولي ميلا بدن أوقف إذا سنكرنا ترى وأن ربنا إن أيجنا كوكل قالنا صوت سنا إن وضن كدقالي سجراف وكر وكعايو ayna muhiim tahay in South Africaanku ay ka faa'iideystaan. wata ugu dambeyntii markan wax baaq ah oo u dir lahayd bulshada Soomaalida dalkan Koonfur Afrika ku nool ma jiraan? waxaan rabnaa kow qaasatan dadka reer Cape Town inaan ku gubaabino wixii dhacay waa wax na wada gaaray inta dhimatay Allah u naxariisto, laakiin ma aha mas'alo qabiil shabil kula maahan. in la qabiileeyo ma rabno, in laba saf la noqdo ma rabno, in qof Soomaaliya oo wax dhiba aan geysan ninka wax dilay isku qabiil yihiin lagu hajuumo ama lagu cabsi galiyo ma rabno. waxaan rabnaa inaan ka gudubno fikirkaas oo aanu aragno qofkii annaga naga mid oo dambi gala kaligiisa laga xisaabtamaya. alxamdulillah rabbil caalamiin qofkii dhibka geysto waa xiran yahay, ha loo daayo asaga sharciga wixii uu kala kulmo. labo waxaan rabnaa qof kasta oo Soomaaliya oo waddankiisa ku laaban kara inuu ku laabto. waddankaygu waa ficnaanaya in dadka iyagu ay ku kalsoonaadaan dawladdeeda iyo dadka iyaga qadarta Ilaahay waddanka in lagu laabto. saddex waddankii maal gashan xitaa haddaad maal gashan inaad asaga ku noolaato waa kaaga sahlan tahay intaad waddanka laaji aan lahayd. saddex ganacsatada Soomaaliyeed inay isku dayaan in locationada iyo meelaha isku raranta oo lagu dilaayo ay ka soo xaroodaan oo imaadaan magaalooyinka waaweyn oo xitaa qofka hadduusan kaligiis magaalada weyn ganacsi wax ka samaysan jirin laba iyo saddex iyo afar iyo 10 inay lacag isku geystaan oo company weyn ka samaystaan magaalooyinka ila meelaha dadka ay lagu laayo waa meelaha isku raranta iyo ugu dambeyn intii aan laabanaynin in ay integration sameeyaan waddankan sida aan ugu noolaan lahayn. waa inaan sharciga waddanka adeecnaa, waa inaan muwaadiniinta dhexgalnaa, waa inaan luuqadda baranaa, waa inaan sharciga ixtiraamnaa. cid naguma casuumin imaatankiisa falsafadii aan kula noolaan lahayn waa inaan la nimaadno. wata aad buu mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa siyahayaha xilka safiirka Soomaaliya ee dalkan Koonfur Afrika ahna qonsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkan Koonfur Afrika mudane Maxamed Cali Mire oo waraysi kooban siinayay asagoo ku sugan magaalada Cape Town TV-ga qaranka Soomaaliya. waa aad ma qashay aad baa mahadsan.